waxaan ugu baaqaynaa Somaliland si sharaf leh inay dhulka iyo dadka Puntland ay joogto uga baxdo dhiig walaal ma doonayno darisnimaan rabnaa wanaag iyo horumar baan rabnaa waxaanan marna ka yeelayn oo dastuurka federaalkuna qodobkiisa 142 uu farayaa in dawladda Puntland inta dastuurka federaalka ee qabyada ah loo qaadayo afti kama dambaysa inay Puntland ku dhaqmayso dastuurkeeda waxaa sidoo kale dastuurka Puntland uu farayaa in xuduudaheedu ay cayiman yihiin shantii gobol iyo degmadii Puntland lagu aasaasay dadkii deganaa ay aasaasteen waa waajib dusha ka saaran Puntland cid ka gorgortami karta oo kale oo dastuur iyo sharci uu siinayo ma jiro waxaan caalamku u sheegaynaa inay dastuurka Soomaaliyeed akhriyaan dastuurka Soomaaliyeed inay akhriyaan marka ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay wax taraan dastuurka Soomaaliyeed wuxuu si qeexan u cadeynayaa dastuurka Puntland uu qeexayaa dhulka Puntland waa cad yahay dawladda Puntland aan mas'uulka cid kale oo gorgortan iyo wada hadal ka gali karta ma jirto arrintaas marar badan waa sheegnay waana ku celcelinayna waxaan kaloo u sheegaynaa ururada argagixisada afraadda ka tirsan ee buuraha calmadow iyo calmiska aad ku dhuumaalaysanayso waqtigiinni waa gabaabsi waxaan u rajaynaynaa dad deegaanadan ka tirsan hadday ka mid yihiin inay dawladda Puntland isku soo dhiibaan dad deegaano kale ka yimid oo aan nabadgelyo u imaan dalkaanna ay isaga baxaan deegaanada waxaan ballan qaadaynaa in ciddii diidda baaqeenaas wax arxan aan loo gelin ma qarsanayno waxaan farayaa ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan wixii bulshadan cadow ku ah goobta ku aragtaan ku toogta maxkamadaha dib la sugmay maxaa yeelay cadowga hadda jira wajiyo badan buu yeeshay waxaan rajaynayaa cadowgaas in lagu dhiirado cid kasta oo faldambiyeed ku jirta oo hubaysan oo wax fulinaysa goobteeda ha lagu toogto